wuxuu hadda ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya habdhaqankiisa gudaha garoonka iyo waxa ay riyadiisu tahay. Tababaraha ku-meel gaarka ah ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay inaysan waxba ka gelin oo aysan waxba ka quseynin inuu jabiyo rikoorada halyeeyga Red Devils kulanka soo socda ee Tottenham Hotspur. Solskjaer ayaa ku adkeysanaya qaab qurux badan in kooxdiisa uu ku sii maamuli doono tan iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu adkaaday 5 kulan ee ugu horeysay xilka Manchester United kadib markii uu bedelay kaligii taliskii hore ee reer Portugal Jose Mourinho bishii la soo dhaafay, isagoo soo barbareeyay rikoorkii Matthew Busby sanadii 1946 iyo 47. Macalinka reer Norway ayaa ka sare mari kara Busby waa haddii uu gaaro guul kulanka Tottenham Hotspur kaasoo hadda dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, kulankaasi ayaa dhaxsan doona qalcadda caanka ah ee Wembley, waxaana Solskjaer uu sheegay in uusan hadda qorsheyneynin in uu bandhigyada uu sameynayo uu ku jabiyo rikoorada macallimiintii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United uu hadda isagu hogaaminayo. Ugu dambeynna kulamo